السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan idinku soo gudbinayaa video aad u gaaban oo aan kaga hadlayno deeqda waxbarasho ee wadanka Turkiga taasoo sanad walba soo baxda inta badan bilaha January iyo February. sanadkan waxay bilaaban doontaa insha Allah January 10keeda waxayna orderlinku yahay February 20keeda marka waxoogaa yaro hordhacaya waxyaabaha qofka looga baahan yahay raba inuu xareysto deeqda waxbarasho baan halkan ku soo koobayna insha Allah taala. laakiin video aan kaga hadlayna qaabka loo buuxiyo systemka dhexdeeda video kale soo gelin doonta hadda, laakiin waa preparation iyo isku diyaarin scholarship kaas aan isku diyaarin lahayn baan halkan uga sii hadlaynaa. website-ka magaciisu waxa weeyaan Turkiya Bursulari baad ku qoraysaa halkan Turkiya Bursulari kan ayaad ku dhufanaysaa ugu horeeya linkigan ugu horeeya ku dhufanaysaa home page kan ayuu ku geenayaa marka waa kana sanadkan 2021 kalendarkiisu wuxuu bilaabanayaa February waa kana waa January 10keeda ilaa February 20keeda. marka halkan kaliya muhiimad waxa weeyaan inaan waxyaabaha la inooga baahan yahay hadii danaynaysa inay si diyaarsato sidii ay u buuxin lahayd. marka insha Allah inaan waqti isku luminaynin hore ayaan u sii galayna videoga. criteria waxyaabaha application criteria waxyaabaha la inooga baahan yahay waxyaabaha criteria looga baahan yahay haddii ardaygu yahay arday apply garanaya degree-ga masterska iyo PhD-ga. marka koobaad ardayda xareynaysa inay xareystaan degree-ga koobaad achievement-skooda labitanaadka ama form 4 waa inuu hado 70% minimum waa inuu 70 hado. ardayda masterka iyo doctorate-kana waa 75. ardayda caafimaadka sida medicine-ka waa inay 90% ahaadaan dhibcahoodu macnaha. age-kuna waa muhiim criteria. ardayda apply garanaysa degree-ga waa inay ka yar yihiin 21. ardayda masterkuna waa inay ka yar yihiin 30. ardayda PhD ama doctorate program-kuna waa inay 35 iyaguna ka yar yihiin. haddaba ayaa eligible oo macnaha oo scholarship-kan u furan yahay waxaa lagu leeyahay halkaas citizens of all countries baa lagu leeyahay citizenada wadamada dhan way soo apply garan karaan. marka waayahay nin eligible ma Turkish waxaan apply garan karin Turkish citizens and those who have lost their citizenship waa criteria-ga weeyaan. hadda waxyaabaha kale iyagana inooga baahan yahay qofka inuu waxyaabaha macnaha qofka looga baahan yahay hadduu degree iyo hadduu yahay master hadduu yahay waa kana marka haddaba criteria-ga ardayda dhan looga baahan yahay si Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan halkan idinku soo gudbinayaa video aad u gaaban oo aan kaga hadlayno deeqda waxbarasho ee wadanka Turkiga taasoo sanad walba soo baxda inta badan bilaha January iyo February. sanadkan waxay bilaaban doontaa insha Allah January 10keeda waxayna
oo deadline-ku yahay February 20-keeda marka waxoogaa yaroo hordhacaya waxyaabaha qofka looga baahan yahay raba inuu xareysto deeqda waxbarasho baan halkan kusoo koobaynaa insha Allah taala. laakiin video aan kaga hadlayna qaabka loo buuxiyo systemka dhexdeeda video kale soo gelin doonta hadda, laakiin waa preparation iyo isku diyaarin scholarship-kaas aan isku diyaarin lahayn baan halkan uga sii hadlaynaa. website-ka magaciisu waxa weeyaan Turkiya Bursulari baad ku qoraysaa halkan, Turkiya Bursulari kan ayaad ku dhufanaysaa ugu horeeya, linkigan ugu horeeya aad ku dhufanaysaa. home page kan ayuu ku geynayaa marka waa kana sanadkan 2021 kalendarkiisu wuxuu bilaabanayaa February waa kana waa January 10-keeda ilaa February 20-keeda. marka halkan keliyata muhiimad waxa weeyaan inaan waxyaabaha la inooga baahan yahay cidii danaynaysa inay sii diyaarsato sidii ay u buuxin lahayd. marka insha Allah inagoo waqti isku luminaynin hore ayaan usii galaynaa videoga. criteria waxyaabaha application criteria waxyaabaha la inooga baahan yahay waxyaabaha criteria-ga looga baahan yahay haddii ardaygu yahay arday apply garanaya degree-ga masterska iyo PhD-ga. marka koowaad ardayda xareynaysa inay xareystaan degree-ga koowaad achievements-kooda 12-aadka ama form 4-ka waa inuu ahaado 70%, minimum waa inuu 70 ahaado. ardayda masterka iyo doctorate-kana waa 75. ardayda caafimaadka sida medicine-ka waa inay 90% ahaadaan dhibcahoodu macnaha. age-kuna waa muhiim criteria. ardayda apply garanaysa degree-ga waa inay ka yar yihiin 21. ardayda masterkuna waa inay ka yar yihiin 30. ardayda PhD ama doctorate program-kuna waa inay 35 iyaguna ka yar yihiin. haddaba ayaa eligible u ah macnaha oo scholarship-kan u furan yahay. waxaa lagu leeyahay halkaas citizens of all countries baa lagu leeyahay. citizenada wadamada dhan way soo apply garayn karaan. marka waayahay non eligible ma Turkish iyagu waxaan apply garayn karin Turkish citizens and those who have lost their citizenship. waa criteria-ga weeyaan. hadda waxyaabaha kale iyagana inooga baahan yahay qofka inuu waxyaabaha macnaha qofka looga baahan yahay insha Allah waa kana halkan waxaa ku qoran required documents. all candidates must submit the following documents during the online application. ta koowaad qofku waa inuu haysto valid national identification document or valid passport. waa inuu haysto qofku national identification document waa inuu haysto ama valid passport. waa ku shuruudo koowaad. sawir bilihii u dambeeyay aad gashay adoo waxaa la dhihi karaa 6 bilood ee ugu dambeysay sawir uu qofku galay. national exam scores-kana waa loo baahan yahay. qofku hadduu form 4 yahay ama 12aad dabci ugu dambeeyay waa loo baahan yahay. certificate-ka waliba laga baahan yahay. haddii aad tahay qof macnaha diploma ka qalin jebinaya ama jaamacad degree ka qalin jebinaya temporary certificate graduation laga rabaa. academic transcripts-kana waa laga rabaa iyaga laftigooda. sidoo kale waxaa kaloo laga rabaa international scores, international exam scores ayaa laga rabaa sida GMAT, TOEFL, IELTS baa laga rabaa. tusaale ahaan oo kale haddii ay jaamacaddu rabto weeyaan, haddii ay jaamacaddu rabto waa laga rabaa. haddaysan rabinna lagama rabo, dhib ma laha oo laga boodi karaa. sidoo kale language test scores if required by the chosen university waa lagu halkan. research proposal-na waxaa kaliya laga rabaa dadka buuxinaya PhD-ga
ayaa laga rabaa inay la yimaadaan research proposalkoodii. tusaale ahaan example of your written work macnaha proposalka ama shaqadii macnaha aad samaysay distriga aad samaysay markaad dhiganaysay masterka inaad keento ood kusoo attaajireysay waa lagaga baahan yahay. insha allahu tacaala videogan waa xasuusin weyaan insha allah inay ardayda isku diyaariyeen. waxaan soo gelin doonaa video tifatiran oo aan kaga hadlayno qaabka loo buuxinayo ama ardayda u xareysan karaan masterka iyo degree insha allahu tacaala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.